taxanaha caafimaadka. hal ciridka oo dhaawac gaaro saliiliyo inaad isku aragto jiridka ilkaha oo dabca iyo kalsiyamta ilkaha oo yaraata waa dhibaatooyinka ugu badan ee la gala kulmo ilko xiridda. sidaa darteed waa muhiim in dhakhtarkaaga ilkaha si joogto ah aad ula socodsiiso wax walba oo kugu soo siyaada. dabca iyo kalsiyamta ilkaha oo yaraata waa dhibaatooyinka ugu badan ee la gala kulmo ilko xiridda. sidaa darteed waa muhiim in dhakhtarkaaga ilkaha si joogto ah aad ula socodsiiso wax walba oo kugu soo. 2. hooyo haddii cunugaagu diido nuujinta naaska maalmaha ugu horreeya, hala yaabin, waxaa suuragal ah in cirbada foosha lagugu duray, diidmada nuujintana iyadaa wadata. maalmo yar kadibna cunugu si toos ah ayuu naaska ula qabsan doonaa. 3. inta badan dadka qanjirada ka xanuunsan waxay ka siman yihiin calaamado dhowr ah, sida albaab ay xireen in ay haddana isdhahaan armaadan xirin, mobilkooda in ay u maleeyaan in uu dhacayo iyo in ay xitaa isdhahaan qof baa ku yeeraya oo hebelow ku dhahay. 4. haddii aad isku aragto wax xagga farjiga ka soo kuusan markaa kaadida iska dhaqayso, gaar ahaan xilliga umusha, ma ahan kaadi haysta ee waa minka afkiisa oo soo raaraacsamay foosha darteed. qaliina uma baahna oo si dabiici ah ayuu minku booskiisii hore ugu laaban doonaa. 5. cunista si joogta ah weliba maalinle ah daawooyinka xanuun baabi'iyaha, gaaska iyo hurdada waxay qofka caadaysta ku keentaa cudurro halis ah sida kansarka dhuunta iyo beerka iyo cudurrada neerfaha. ha cunin daawo uusan dhakhtar kuu qorin. 6. ma og tahay in haddii aad maalin kasta cunto hal qajaar qayaar ah uu kuu leeyahay faa'iidooyin fara badan, aad helayso hurdo iyo caafimaad. sharadhex si talooyinku u wada gaaraan bulshadeenna baahida u qabta caafimaadka.